Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daawadayaasha qiimaha loo ku soo dhawaada xogta wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha oo aan idinku wahayno waxyaabo kala duwan oo ay kamid yihiin ciyaartii xiisaha badneed ee xalal ciyaaray iyo wararkii ugu dambeeyay ee dhanka suuqa kala iibsiga. Aan ku bilownay habeenkii xalay ahaa waxaa la ciyaaray ciyaar xiiso badan oo qayb ka ah horyaalka Yurub ee Champions League heerkiisa semifinalka oo lugtii labaad lagu dheelay ama labada kooxood ee Barcelona iyo Liverpool ay ku wada ciyaareen garoonka Anfield ee dalka Ingiriiska. ciyaartaas oo ahayd ciyaar xiiso badan oo meelo kala duwan oo caalamka laga daawanayay ayaa dad badan waxa ay rajo ka qabin in ay sida xalay ay isu bedeshay ciyaartaasi aysan u dhici karin markii kooxda Barcelona oo gurigeeda Nou Camp 3-1 kaga soo badisay kooxda Liverpool ay Liverpool ku bedeshay ciyaartaasi 4-0 sidaana ay Liverpool ku gaartay finalka Champions League. waxay ahayd ciyaar si gaar ah isha loogu hayay waxaa la aaminsanaa in Barcelona ay lugtii hore ee kulanka xaqiijisay in ay u soo gudubtay oo ay lugta la sii gashay finalka Champions League isla markaana Barca ay ka dhabayn karto ballanqaadkii Leo Messi ahaa in uu horyaalka Champions League oo in koobka Championka uu geyn doono Nou Camp laakiin wax ka duwan waxaas ayaa dhacay. Barcelona wajigabax iyo wax lama filaan ah ay kala soo laabatay guriga kooxda Liverpool ay ku dheesho ee Anfield. Liverpool iskuma aadanayn waxaana ka maqnaa ciyaartooy badan oo muhiim ah oo ay kamid yihiin Mohamed Salah, Roberto Firmino, Naby Keita iyo kuwa kale halka macallinku uu benchiga dhigay ama kaydka ciyaaryahan Wijnaldum. daqiiqadii 7 ee ciyaarta David Origi ayaa goolka koowaad ee ciyaarta dhex dhigay shabaqa kooxda Barcelona. xalay Eber ayaa ciyaartu sidaas ku noqotay iyo aggregate-ka guud ee celceliska 3-1 half time-ka ama qaybtii hore ee ciyaarta ayaana 1-0 ku dhamaatay. markii la isku soo laabtay macallin Jurgen Klopp waxa uu sameeyay isbedel la yaab leh waxa uu ciyaarta ku soo tuuray bedel ku soo galiyay Wijnaldum oo qadka dhexe kaga dheela kooxda Liverpool. Wijnaldum waxa uu sameeyay la yaab markii uu 2 gool 2 daqiiqo ku dhaliyay. daqiiqadii 54 ayuu 2-0 ciyaarta ka dhigay sidoo kale daqiiqadii 56 ayuu ka dhigay 3-3 taasoo aad ay markaas isula kaceen taageerayaasha faraha badan ee garoonka Anfield ka daawanaya ciyaarta ayaa noqotay mid furan oo 3-3 celcelis goolashu ay markaas yihiin. daqiiqadii 79aadna David Origi ayaa 4-0 ka dhigay ciyaarta taasoo madax xanuun ku riday kooxda Barcelona iyo taageerayaasheeda u safray garoonka Anfield si ay halkaasi ugu soo raaxaystaan oo ay markaasi goobjoog u noqdaan kooxdooda oo finalaha si raaxo leh ugu sii gudbaysa. kooxda Barcelona 4 sano ee ugu dambeeyay ma aysan gaarin Championka finalkiisa taasoo muujinaysa hoos u dhac iyo kooxdu sida aysan ugu wanaagsaneen sanadahan dambe gaaritaanka finalka koobkan tartanka xiisaha badan. sanadkii hore waxaa ka reebtay koobka kooxda Roma oo gurigeeda 3-1 ku dharbaaxday. haatanna Liverpool ayaa 4-1 kaga badisay waxaana la sheegayaa in kulamada awayga ee Championka Barca ay ku liidato sanadihii dambe. adoo kulanka xiisaha badan ee xalay laga ciyaaray horyaalka Champions League halka aynu kaga gudubno caawana kulan kale oo xiiso leh ayaa jira oo dhex mari doona kooxaha Tottenham Hotspur iyo Ajax Amsterdam. waxaana kulankaasi lugtii hore uu ku soo dhamaaday 1-0 oo garoonka Tottenham kooxda Ajax ay ku soo badisay. dad badan waxa ay leeyihiin Tottenham waa ay soo bixi kartaa finalka Championka waxa uu noqon karaa laba kooxood oo markaasi Ingiriisa inkasta oo Ajax aysan ahayn koox la yeelsan karo oo ay aad u awood badan tahay sanadihii dambe. wararka kale ciyaaraha markii aanu fiirnana ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa ku guuleystay goolka ugu quruxda badnaa bisha ee horyaalka Ingiriiska waxaana loo doortay goolkaasi gool oo ciyaaryahanku ka dhaliyay kooxda West Ham United oo intuu dhowr ciyaartooy dhulka jijiifiyay gool qurux badan uu ka dhaliyay. Jamie Vardy ayaa isaguna ku guuleystay ciyaaryahanka bisha ee horyaalka Premier League markii 4 kulan uu 4 gool dhaliyay waxaana uu ku garaacay Eden Hazard iyo Mohamed Salah. isla wararka ciyaaraha ayaan daawadayaal ku guda jirnay maamulka Premier League ayaa ku dhawaaqay liiska musharaxiinta u taagan abaalmarinta xidiga xilli ciyaareedka ee Premier League ugu fiican. dhowr ciyaartooy oo wacdaro ka dhigay horyaalka sanadkan ayaa ka soo dhex muuqday liiska. waxaa kamid ah Sergio Aguero weerarka uga dheelay Man City, Eden Hazard oo Chelsea, Sadio Mane iyo Mohamed Salah
oo weerarka Liverpool ku midaysan. Bernardo Silva iyo Raheem Sterling oo Man City iyo Van Dijk difaaca kooxda Liverpool ee wacdaraha dhigaya. ciyaartoydaas ayaa u sharaxan Player of the Season ama ciyaaryahanka xilli ciyaareedka.